kursigii baarlamaanka iyo kursigii golaha deegaanka hadduuna reer ku jirin maanta reerba maaha reerkaasi lacagaha 600,000 dollar waa inaan ka dhex raadiyaa jago saan u iibsan lahaa waa inaan halka arinta ano tolka qiiqa isku qaranaya kulli way ugu jiraa qabiilka tolka ficilka tolkuna way ugu jiraa waa inaan halkaan wax ka dhex raadiyaa iyaguna codka u raadiyaa annaan ka bariiseeyaa idinkana ma raba inaad qabiil u leexataan inaad nin aqoon leh oo wax soo saaraya oo kor bulshada u qaadaya waa inaanu inagu codkeena siinaa alla darajada baxshee codkaaga adoon dayicin reer hebel dabar ugu xidhin dunida aan hiigsanee la daydaya ruux dalkiyo dadka iyo diintaba wax tara ninkan gaariga ka soo degaya waa xaaji xasan waxa uu socdaa guriga aw xidig gurigiisa ninka odayga aw xidig soo kan ma laahi waa laftigiisa أنا أقول عيد بتشوقين أدارو إيورا أدارو خير أبي منو تشوقين ها أقول تشوقة نمرة كاي تصادر نمرة waxa dhinaca ka sii raac doona ibliis bal haan aragno ibliis wacdaruhu halka ka dhigo صادر ما فعلي سكول كم ريتها ها ما شاء الله ما شاء الله أدارو حاتري سكول كمان دكتها ما شاء الله ما شاء الله ما لا غير حافظة ها هل قلت شو قاعدين إياه الله أربعة صور راتوا حسنة إيور ما في عنده حاجة عاف ماذا خيره فريسو الحمد لله عاف ماذا تقول لي وين ما يدرك ما فكرت هاي إيور aad baa loo fiican yahay waad soo fogaatay xaaji xasan maanta ma hawl baa jirtay maanta hawl baa u socday haye waa adigoon ogtahay inay doorashadii soo dhowdahay haye oo la tartamayo waan gartay oo imika reer loo tartamayo reer ba loo tartamayo haye kursigii baarlamaanka iyo kursigii golaha deegaanka hadduuna reer ku jirin maanta reerba maaha reerkaasi oo kursiga baarlamaanka hadaynu ku hadhno reerkeeni ba la garanayo lama tirsana kowdhe maanta waa lagu xisaabtamaya waan gartay 10 caruur dhashay waan gartay mid baa ugu yaraa kii soo kaxiya ugu yar Soomaa kaasa ugu yara kaasa ugu yar waa qaangaadinta kale sagaalka kale waa loo baahan yahay codkoodu uu shaqeynaya kowdhe fadhiga ka kac kowdhe war maanta dad reerkan xog qaban weyno oo ninka soo saari weyno yay noo maqan mar hadiiba baarlamaanka hadii aynu weyno aan tiradaba aynu ku jirin Soomaaliland aynu ku jirin yay noo maqan way yay noo doodaya oo caruurtada dhow shaqo siinaya oo caruurtada shaqo siinaya oo inay hebelkii kala shaqo siinaya waa inaan cid ka shana meesha markuu imka soo baxo waxaan ku weydiiyay waa adiga saddexda baax lahaa ee 30 caruur lahaa 30kii way codeynayaan meel kale ma marayaan الله خلنا أنت صدق كلا أنت قرص لا ما أنت عط بينو صبح لا هاد هو سؤالي يكون مقلنا ولي بكدر صو شاب كاغا وبوح أنيو الحق حق هوري تاساي مرتين يا يدو تول قناتنا أنا كوكو أين واتليلي في قتل تولكي كما تشنا كمان هذا إديجيسو إمي كمان كان تقو سادادي وانقرنا يلا بركاجي هاي دلي وانكسوسينيا تولك لا شقاده لا شقاده تولك وارن لا كا هادده واغون وادوغيد هاي إن كان ودنا واغون كوددي بريغ horta jaamacad ma dhamaystay jaamacadii muu gelin ba waan wada naas ka taagay jaamacad galay waan wada waa kii xoolaha seelada iibin jiray dilaalkii alla ma kii dilaalka hada war waan soo saaray nalka ka reystay halka nafaqada ha galo hay kowdadii waliba ku darso lacag badrigisa تولكي باورية تولكي باورية نوع مسمى أنا تبحين أدرس شن يتمكن $1 ين سعودي عجيب بدانا يا شن يتمكن $1 سلطان بحين أدرس لا با تمكن بودي
alxaasil mise isku wada noqdeen ما لا ترين كريا 500 kun oo dollar وين سو صارنا نيكا waynu ku kharash karaynaa aniga يا baarlamaanka yaa laynaga weynay reeraha yaryar ma arag reeraha yaryar cid ba wadan inuu ibsan sidaasaynu yeelanaa يا sidaasaynu yeelanaa arrinta reerkeenaasi maanta in cidna ka cod badnaan war anaa imika la hadlaya ciyaalkayga baan shirinayaa ها imikaan shirinayaa waan kugu war ogaa ama saylad ha joogo ama aqoon la-aantiisa ha maxaa ahaado kaa gala adiga iyaynaa baarlamaanka laynaga waayin yaa laynaga waayay reerkeenna haddii kale dee waxaa la odhan doonaa maba jiraanba reerkaasi golaha deegaanka iyo baarlamaankaaba yaan laynaga weynay dee haa waay haddii laynaga waayo ba afrikada kaleynu iska diiwaangelinaa saasaan kugu ogaa ka hudhe waaye saasaan kugu ogahey halkaad iga taagan tahay ها ninkaa maanta garab buu inooga baahan yahay أنا تلك وان كل تابع soo maaha بهاش قبيالتي la ilaahay waa intaan kugu imidba دوحة إيجش. لفاش كده دوحة إيجش فعلك قبيلك ها أنا كعطلك وأنا كعيانيو ugu hadle كيف iminkaan kuu soo diray in yar horta maanta aad dadka u dirtid waxaan ku markaan imika iskuleeliyo ها ayaan reerkii ugu tagay hadle weliba ku darso ها carruurta carruurtaydii imika sharinaya imika shiri gacanta shiri hadda nin mati hadda carruurtaasi dhinac kale kaa maraan tayda iska daayay hee ilaa xaafadii kale ها ayaan albaabada garaacay adigu igu soo waalo islaanta maca reerkooga ها soo kaxee shida laan laba socdee ii soo iminkaan qaado kuu soo diraya way hay anaa baa qaanada imikaan ciyaalkayga shirinaya horta wuxuu ii sheegay arrin wanaagsan buu ii sheegay nool lacagaha 600,000 dollara waa inaan ka dhex raadiyaa jago saan u iibsan lahaa waa inaan halka arrintaa anoo tolka qiiqa isku qaranaya kolley way igu jiraa qabiilka tolka ficilka tolkuna way igu jiraaye waa inaan halkaana wax ka dhex raadiyaa iyagana codka u raadiyaa annaan ka bariiseeyaa imikana reerkayga baan shirinayaa 9-10 baan iskugu yeedhaya oo saasaan samaynayaa hooyo maanta waan iskugu ken yeedhay awlaadaydii arrin baa markaa jirta arrinka jirta waxa weeye waa tan doorasha wadankii ka jirta calankanaan gacanta ku hayaa waxa uu ka kooban yahay 3 midab kaas waa casaan kani waa caddaan kana waa cagaarkii casaanka sidaynu ognahay dhiig badan baa usoo daatay hooya ku goblantay aabbaa ku geeriyooday awlaad baa lagu gumaaday nabadana waxay turjumaysaa waa caddaankii oo waa tan aynu hadda ku jirno haddaba cagaarkan oo ah barwaaqadii iyo bashbashkii iyo badhaadhihii maxaynu u gaadhi laanahay sababta aynu u gaadhi laanahay ma garansaan waxa weeye waa qabiil iyo qurun waxaasaan daba soconnaa oo innagaa la degnay haddaba sidii aynu qabiilka iyo qurunkiiyo waxaa oga baxno waxaan u baahanahay awlaadeedii inaad codkiina siisaan qof aqoon leh oo qalinkaas maxay heeday lagu horumar gaadhayo waa qalin maanta qabaa'il waxba inooma sheegayo marka waxaynu inagu doonaynaa maxay heeday sagaalkiina awlaadeen dhalay kaasun baa inoogu yar kaas weli muuqaan gaadhin marka waxaan doonayaa sagaalkiina kale inaad qalinkiina aad maxay heeday iyo aqoontiina aynanu qabiil ugu codayn aynu mid inaga wax inoo taraya iyo maatida iyo waxaan ku yidhi hooyada halkaa xabuubta ku iibinaysa aqoon baa soo saaraysa laakiin nin qabiil ma soo saaray hooyo iminka inankii naar baa aniga si fiican ii fahmay oo waxaan ku yidhi wixii la socdaa idinkana ma raba inaad qabiil u leexataan inaad nin aqoon leh oo wax soo saaraya oo kor bulshada u qaadaya waa inaynu inagu codkeena siinaa soo saa iskumaynu raacin saasaa inaga inoo ballanaa haynaga siina qabiil iyo qul iyo waxay naga ilaaliyaan saasaan hooyo u baahanahay hadda nin oonu hayga leexan hooyo hee muuna nin reerkeena ka sharaxnayn Haye. musharaxi wuu ka sharxan yahay de isagaa beri toban markaan codka gurino isagaa ila meel na geenaya aniga jaamacaday dhameenadu ogtay isagaa ila inoogu jira dowladda meel na geenaya haddaan uuri doono isaga yaa beri toban na geenaya maya hooyo fikir khaldan baa kaa dhaadhacsan soo jaamacad maad dhammayn soo aqoon maad soo baran aqoontaadii ayaad ku shaqaynaysaa iminka shaqo qaran de qabiil ma leh qof kastaba qalinkiisa iyo aqoontiisa ayuu ka hormaray markaa hooyo waxayaan mar dambe kaa maqlin waxaas waa waxa ina reebay waa waxa dhibaatada inoogu wacan waa waxaan ku yidhi hoos inoo riday iminka haddaynu aqoon isku soo saarayno wadamadan la tartami lahayn maxaa hoos inoo riday kan waa ree hebel igu codee lacag baan ku siinayaa hooyo waxaa iga jooji waxa anigu ma maqli karo anigu waan kugu soo tabcay maxay ahayd aqoon baan ku soo geliyay waan ku soo kaalin geliyay war qalinkii iyo buuggii aad ku indhamadoobaatay ma qabiil baad ka dooratay anigu mar dambe waxaa kuguma maqli karo waxaad codkaaga ugu ridaysaa nin aqoon leh oo ina soo saaraya sidaa ma isku raacnay wakaa kaa yaroo kaa caqli kaa yar baa waxaan ku yidhi fahmaya wixii iga ilaali hooya qabiil iyo qurun iyo waxaas waa waxay riday waaye hooyo waa saxay saasaan isku ognahay
aan kugu raacsan arkaaga sida fiican le usoo bandhigtay way qabiil waan iskaga tagnay qalinkayga saas dhammaantii saas isku raacnay hooyo haddii xataa nala yimaado iga ilaaliya aqoontii waxaynu isku raacnay baynu inagu halkii un baynu ku ridaynaa saas isku good wakaa ina kaayr baa la socda hooyo saa ila socda caruurteydii marka ayaa dalka wax u taray nagu ridnaa haa kaa aqoonta qalinkaaga aad sidatid baa saa kuu hormarinaya qabiil waa la iskala tegi hooyo markaa inaga ilaaliya السلام عليكم أبا ما في عنتين ورفر حظا ذي وضع waxaan ku yidhi doorashadii codayntii waad garanaysaa horta ilaahay maasha allah ubad khayr qabaaba ilaahay siiyey toban baadtiin inan kaasun baan qaan gaadhin sagaalkiina kale waad qaan gaadheen waa xilligii waxtarkiina uu tolku sugayey annaan sugayey soo ma garanaysaan doorashaa jirta cod baa la dooranaya baarlamaankii baa la dooranaya gorihii deegaankaa la dooranaya soo ma garanaysaan nin reer keniya ayaa sharaxan laba inoo sharaxan weliba laba dhan baa inoo sharaxan waa golihii deegaanka iyo golihii baarlamaanka reerkii laga waayo baarlamaankana tiraba kuma jiro dadkaba tiro uguma jiro intaynu tiro leegnayna waad aragtay reerkeenna codkeennii maanta tolkeen wax ugu qabanaynaa waxaan idinku yimid aabbo suuqii waxaan deg deg uga soo laabtay adigaa arkaya saaka haa waxay soo celiyey waa arrintaa codkiinnii jaamacadda soo kuma qalin jabinayn adigu adii ka qalin jabiyey kuwanna waa kuwa imika sanadkanay qalin jabinayaanba soo ma garanaysaan baarlamaanka haddii qof inoogu jiro kaasaydi shaqo geynaya waynu ku dhimanaynaa codkeennaynu siinaynaa waa tolkii haa waa inankii dee kii dee inay awfaarax ee dilaalka haa saylada dee haa kii laftiisi weeyaan codkeennaynu ku soo saaraynaa maalinta carafada soo ma garanaysa kaynu neefka inoo iibinayay inoo soo dilaalayay ee suuqa saylada ka shaqaynayay waa isagii kaasaynu soo saaraynaa aabbo baarlamaanka isaga inoo gelaya haa aqoontiisu waa sayladaasun intaad nin dilaala aynu dooranayno maxaa inoo diiday nin aqoonna inaynu doorano kanaa keniya waa tolkii ama aqoon ha lahaado aqoon la-aantiisaasaynu ku dooranaynaa baarlamaanka haynooga dhex muuqdaa aabbo masaylad baa aqoontu mahadhow masayladaa laga shaqaynaya sayladun busuu ka shaqayn garanaya aabbo horta saynabay dhegeyso baarlamaanka un haynooga dhex muuqdo waayo ila reerkii aan baarlamaanka ku jirin tiradaba kuma jire aqoon la-aantiisa haynoogaga dhex muuqdo qolo wakiiladu ma ari bay iibiyaan isagu muuna dilaalahayn qof walba cilmigiisu inuu ku dhaaqaminayo dilaal ha ahaadee innagaa sharaxanay soo ma garanaysid waa aftahan laba dhagax dhexdood buu kala soo baxaya marka aabbo waxaan idinka rabaa aaba su-aal ma weydiin karaa haye ninkan sharaxanaya adladayg wuxuu qoladeenu ka mid yahay haye waa dilaal waan garta xooluu kala dilaalaa waa reerkeeni dalkeena amba wadankeena amba waxbarashada muxuu qabanayaa martaabad faasiin kartaa fikirkan kaana dhacsanay aaba armu fikir qaldan yahay ma dadku dilaalaya horta haddaba anaa idinka dhaadhicinaya aabbo reerkii baarlamaankaa laga waayaa tiradaba uguma jiro dalka soo maydaan garan dee hortay dhegayso aqoon la-aantiisa haynooga dhex muuqdo tiradoon tiradeenna halkaa taagnaa reer hebelun baynu ku dooranaa ree hebelun haynoogu dhex jiro ree hebel baa baarlamaanka loogu jiraa tolkeenu iyaga wax baran waayo baarlamaanka bay hore geli lahaayeen iminka mid dilaala leedahay baarlamaankan gelina maxaanu anugu amba kuwa dhabarka ugu jira amba maxay ku noolaanayaan markaanu dilaal doorano iminka markaad ka soo baxdo jaamacadda isagun baan kuu keenaya hore lagaa shaqo geynaya isaga inoogu jira aaba waxaan ku yidhi qabiil in baadna daba wadaa oo annagiibaa qabiil intaa maxay jaamacaddeeda u seegnay maad bal kuwan jaamacadaha ka baxaya aad u danaysid mid lahaa su-aal ma ku weydiiyaa qabiilka haddii sheegaysaa miyuu aakhiro awar kaa celinaya bal waxaad ku hadlaysaa aakhiraha la gaadho xageed noo dilaysaa waa banu taaganay bal waxaad ka hadlaysaa maanaan anigu idin dhalin
ما وانا دشي carruurtaydii ma tihiin amarkayga haddaad qaadan weydaan reerkeenaynu soo saarnaa jaahil ha noqdo wuxuu doona ha noqdo codkiina igu raaca waryaa cid meel kala geen karta qalin aqoon maxaa kaa kale aqoon reerkeenna yaad ku abtirsataan waa tolkeennii qaadhankayaad la bixisaan waa tolkeennii haddaan idinka waayo codkiina ood nin aqoonle la raadsataan dileelkaasa inaga inoo shaqaynaya bal aan idinku imaado berri weeyaan doorashadii halkaa isa sii safa anaa aqaanee maan anigu idin dhalin codka meeshaan idaa geeya tolkiinaad u geynaysaa markaasaad aniga aqoon ii sheegaysaa waryaa idin darada iga ilaali aniga waryaa waxaad ku sheekanaysaa saasaan eeg iminka codkeennii waxaanu siinaynaa baan ku yidhi aqoonta wax kale waryahoy naya xanaanay halkeed u wataa carruurta dee carruurta codkii baan geynayaa codkiya haa codka waa kuwe kuwaad u geynaysaa dee nin aqoon laygu soo ridaya aqoontaa kala jabta waxaan ku idhi tolkaa loogu shubaya tol looguma soo hadhaabo inamar shooyo war soo hadh waryaa inamari waxaas ma soconaysaa ku idhi aqoon baa soconaysa aqoon annagu qabiil iyo waxaa ma naqaano carruurta soonumaan dhalay anay igu abtirsadaan baan ku idhi carruurtan anaa mas-uulkaa bal waxaad ka sheekanaysaa may waxaan ku idhi hadday adduunka kugu abtirsanayaan anigana aakhira igu abtirsanayaan markaa qabiil baa saa kuu daandaamiye ubadkaa iga namaad joogi namaad joogi waar namari joog maya noqda waryaada waxaad ku sheekanaysaa wallaahi bilaahi tallaahi mayna ugu soo ridayn baan ku idhi nin aqoon la igu soo ridaya way soconaysaa tolkaa loogu soo ridaya inamarsa waxaas wax eeyaha maxaa kaa khaldan maxay ka khaldan waalan tahay ma tolkaad dhaafaysaa oo tolka muxuu sheegayaa kale awlaadda waan ku soo taxaan war imika seeta war ninka yaa iga qabta war axmedii sheega tolkiina maanaynu ku ballamin inaynu codka siino aqoontaanu ku ballanay war aqoon baa shaqaysa aqoon baa shaqaynaysa baan ku idhi aqoon ma jirto tol iyo qabiil waxaas guriga baarlamaanku ma lagu dilaalaya aniga war axmedii sheega war heedhe war yaahe war caqligaaga ii shaqaysiiyo xanaanay ma joogi war ma joogi aduu malaha saddex hooyadii waxaad rabtaa intaan saddexdii siiyo malaha war haddaad qabiil saddexda igu siina sida igu sii baan ku war caqligaagan ka shaqaysii waar lacag iyo qabiil iyo waxaas waxa ma sheego aqoon baa maanta lagu hormaray aqoon baa waxaan ku nabadda aynu ku keennay bal waxaad ka sheekaynaysaa horta waxaas ma soconayaane heedhe ilaahay intaad ka boqoto oo nigadiisa qabiilkaana daba wado inamarshi odayga waar soo inamarshi inagu waxaan ku aqoon bal wakaas eeg waxay samaynayaan eeg tolkiiba imika nagu ceebeeyeen bal ka waran amuurtan ilaahay balkaalaya sidaanu yeelnaa haddaba imika tolkii waanu ku ceebaysanay dilaal ha noqdo aqoon la-aan ha noqdo maxaa iga kale tolkaygunbaa soo saarla baarlamaanka maanta waa kuwa naga reebay qabiilkii dhammaa waa kuwa ka reebee ka waran bal amuurtan eega ها إمك وارواك تاج واك تاج وان جابنا والله واربس كو تاجي يا أياه سودر دخسنا مري سودر بكلي هذا maxay soo dareeriyaa dadkii soo dareeriyay mari caruurtaadu meeday caruurtaya ha tay islaantii baa wadatay islaantii tay islaantii dhashay hayigiis may geysayba may geen he waar islaantii dhashay baa kaxayso waxaan ku ri codayntii tageen waar bas kuydii hor taagay soo raac warheed warya ha ina mari baan ku ri haddaba aan war kuu sheego he nin hor ma kuu sheega dee noo sheeg haay horta cod ha iga sugin cod hee tolkiina waan ku ceebaysanahay hee islaantii caruurta dhashay een qabay xanaan soo ma garanaysa waan fahmay dee waan ku fahmay iyadaa kaxaysatay oo may ka adkaatay weligaa baa laga adka waryaha hee wala abtiyaasheed baa u geysay oo codkii waryaha war horta caruurta innagaa dhalnay haddaan dhalay waayo dee way kaxaysatay abtiyaasho weyna tartamayeen soo xanaan maaha ha dee in adeerkaad baa sharaxnaa oo marka waxaad leedahay reerkoodii bay u geysay reerkooda way geysay maaha haddaba sidaa maaha waryaha caruurtiina way ii sheegeen weligaa baad ku iyo doortay dhegayso hee waxay yidhahdeen dalkan hee qof aqoon leh hee oo dalka iyo dadka iyo diinta wax u qabtaa qalin wax ugu qabtaa ayaan anagu la raadsanay hadda ma ka baa aqoon lahayn waryaha uu garanaya sida xoolaha loo iibiyo sumadda xoolaha u yaqaana waryaha sheeko kalaadkeed waan ku fahmayahay lacag kalaad qaat waan ku fahmaya lacag baad qaat
ما يمقى إن هذا المقى هذا تلقى يقول عباني تلقى يقول عباني إن أنت إسلامتي باك حيسه بل سؤني كمسلحين تلقي من مكوشة ها إمي maxay tahay reerkii waa la kaxaysto carruurtii waa la kaxaystay sagaalkii waa la kaxaystay waa maxaa lagu kaxaysay way taanu tolkii baan u haray saacada laga bilaabo tolkii waan ka saaray suldaanka waan garaacayaa waa barsuka garaacnay oo maxaan u garaaci waay wariyaa dad dhammaan ku dirnay oo carruur dhammaan ku dirnay carruur ninka hayn waayay miyuu tolna joogaya bal adigu tolkay ku ceebanay inaad la hadalo saacad waan kugu diray tolkiina heedhade magtii ay bixinayeen saacada laga bilaabo laba jeer baan ka qaadana madan baan ka bixinana ma jiraso reerkiina waan ka saarnay qalbal cajiib kan wariyaa hadda waan ku sheegay berina meesha noogu iman dayra naga tahay acuudu bal wakaas imsan sheegay imsan laha reerkan ugu ceebaynina imsan la hadleeyo sayyaal hadaba waxaan ku hadlaba ma garanaye sidaan maxaan tolkii ku sameeyaa bal hadaba ii sheega inna lillahi wa inna si aan yeelaba ma garanayo waa kuwa igu ceebeeyey tolkii السلام عليكم أبو ha aabbo madaxay xanuunayaa biiga tahay la hadline أبو ها بارك مدحك وحني بالهو بيان عبد bal noo dhiib haraad bay nafta أبو وحي المخوشة maxaad ii sheegay aabbo أبو شيطان قبل صدح جرس كنار acuudu billaahi min ashaytaan rajiim acuudu billah inna lillaah aabbo maxay haystay شيطان بكو يستي أبو shaydaana ها soo nigul caadi noqday madaxii ma xanuunayabe شيطان بكو يستي أبو ma shaydaan qabiila ها يري يرسق أبو maxaad soo wadaa waryaahe shaydaankii markaan iska naaray caadi un baan noqday أبو قرنسا علن كان maxaad tidhi علن كم قرنسا ma calankan ها dee waa calankii somalilan calankii dalkeenna weeyaan ويا عسان كاس محوك دقيقة أبو casaankaasi ها casaankanaan kuu sheegaa ها casaankan dee imsaa soo dhintay imsa kuma qof ay dhiig baynu u soo daadin aabbo imsaa naafaha imsaa agoona imsaa rajaya imsaa hooyo ku goblantay هيا أبو عطاك إنه محوك دقيقة horta casaanka waynu soo marnay isaga صح caddaankana aynu ka hadlaysaa soo maaha ها caddaankanna waa nabad iyo waynu taaganay iminka صح nabaddii weeyaana waynu taaganay هذا بأخطر كم محانو قاعد لاني أبو akhtarkan waa barwaaqadii صح محانو قاعد لاني wallaahi ma garanayo barwaaqada cagaarkaa waxaynu u gaadhi laanay هو قبيلة أبو ma qabyaaladda ها oo waxaynu kalarkaa saddexaad ee barwaaqada tawxiid ku qorya u gaadhi laanahay waa qabiilka soo maaha هو قبيل كأبو oo dee aabbo hooyaa iga saxsanayde ده هذا بأرضه كتبت أبو inamar imikaynu ka daba carna qof aqoon leh markay igu lahayd hooyadaa xanaan haynu u dhiibno iyadaa iga saxsanayd waxaan eryanayna sho shaydaan bu ahaa inakaan imikaan codka ka gaadhi lahay dadkaygow hoy digniin culus baan sidaa ruuxaad dawo moodayso dalkuu dhisi aad tidho codkaaga ku doorato naftuna kula durugtayba dukhaan kugu noqon karee digniintaydaa guddoon allaa darajada baxshee codkaaga adoon dayicin reer hebel dabar ugu xidhin dunida aan hiigsanee la daydaya ruux dalkiyo dadka iyo diintaba wax tara dareenkii wadaninimiyo dulqaad ku hoggaaminta leh cadaalad ku daahiro dadkuna ay u siman yihiin barwaaqada aan degnee dariiqii horumarkiyo midnimo ku dabaaldegnee codkaaga adoon dayicin la daydaya ruux dalkiyo dadka iyo diintaba wax tara